bismillaah kusoo dhawaada cashirkeena saddexaad ee Adobe Premiere Pro. Waxaan kaga hadli doonaa cashirkan waxa loo yaqaano video effect iyo video transition. Intaan cashirkaas gudagelin ka hor muuqaalkii la soo dhaafay waxaan si yar khaldan idinku sharxay meeshan loo yaqaano audio 1 ama A1 ay ku qoran tahay. Waxaan hore idinku dhahay haddii calaamadan aan xirno ama qufulkan aan xirno codka ma yeerayo. Taasi qalad ay ahayd, codku wuu yeeraa, laakiin qufulkan macno kale ayuu u taagan yahay oo ah inaan muuqaalkan booskiisa laga dhaqaajin karin. Wuu qeylina, wuu hadlaa, laakiin booskiisa ma laga dhaqaajin karaa. Tusaale haddaan isku dayo inaan hoos u soo jiido ma soo jiid maayo, sababtoo ah qufulkaas ayaa xiran. Waxaan la dhahay booskan ha ka dhaqaajinin. Intaas iyo ogaada. Sidoo kale meeshan ay ku qoran tahay M iyo S. M-tan waxaa loo soo gaabiyey mono, S-tan waa stereo. Mono waa markii codka ama kale maqalka oo meesha ku yaala hal leen oo yahay. Stereo waa markii hal oo ka bato waay. Markaan rabo inaan maqalkan aan xiro waxaan taabanaa M-taas. Mar haddaan M-tan taabto ma yeerayo. Waa borowin kartaa. Codka ma yeerayo. Marka hore qalada idinku sharxay waxaa idin dhahay haddii qufulka la xiro ma yeerayo. Taasi kala noqdo. Intaas waa intaas. Muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa wax loo yaqaano transition iyo video effect. Saa ujeedin laba muuqaal ayaa yaalo. Labadan muuqaal waxaan rabaa inaad idin tuso tusaalaan daar hadda muuqaalkan muuqaalka labaad markuu soo galaa meesha yar waxaad dareemaysaa in muuqaalka labaad uu xoog kusoo galayo. Fiiriya, muuqaalka labaad u fiirso, xoog ayuu kusoo galay. Marka qaybtaas yar oo xoog kusoo galay waxaa loo yaqaanaa headcut ayaa loo yaqaanaa. Waxaana markasta lagu xaliyaa wax loo yaqaano video transition. Waxaan tegaynaa marka meesha ku qoran tahay effect. Haddii aad ka waayso effect meeshaas waxaad tegaysaa window, kadib effect ayaa fix soo saarnaysaa. Kadib meesha ayuu kusoo darsamay iconada haddaa meesha ka waaysid. Markaan effect tagno hoos waxaa ujeedaa inay ku qoran tahay video effect iyo video transition. Video effect iyo video transition inay ku qoran tahay ayaa ujeedaa. Marka aniga waxaan furaynaa meesha ay ku qoran tahay video transition. Waxaa ujeedaa in wax badan oo caadi sida defaultiga ah Premiere Pro asaa wax badan wato. Intaan dhan waa transition waaye. Folder ay u samaysan yahay. Folderkiiba kuwa kale ayaa marka ku dhex samaysan transition aan ku jiro. Hadda kana furno tusaale kale inta ayuu wataa. Waxaan borowinayna anaga mid ka mid ah soo qaadaynaa. Waxaan dhigaynaa transitionka siisbana waxaa la dhigaa labada muuqaal meesha iska galaan. Sida muuqaalka kale uu qurxanaado, muuqaalka soo socdo qurxanaado. Video effect waxaa waaye effectiga ayaa lagu dhex diyaa, laakiin transitionka labada muuqaal dhexdooda la dhigaa. Kan aan fiirin hadda qaabkaas ayuu kusoo galaa. Haddii si xoogan ayuu kusoo galaa, laakiin hadda si yar qurux badan oo aan la dareemin in muuqaalkan oo soo booday ayuu kusoo galayaa. U fiirso. Heeri. Sidaas qurux badan oo kusoo galaa. Haddii aad waa ka bedeli kartaa transition fara badan ayaa yaalo. Midka ku qanciyo oo muuqaalka is leedahay muuqaalku qurux badan yahay ayaa soo gelinaysaa. Aan delete kan asaa kale ku siinaysaa. Xataa wana backspace taawna asaa delete maayo. Midkan kale aan ku fiiriyo. Aan fiiriyo asan qaabka uu soo galay. Black aan soo doorto mid black ah. Aan fiiriyo. Qaabkaas ayuu soo galaa asani. Yacni muuqaalka labaad ma la dareemayo qaabka uu soo galayo. Oo meesha waxa ka baxayo headcut-ka ayaa ka baxayo inuu xoog soo galo muuqaalka kale ayaa ka baxayo meesha. Marka video transition waxaa la dhigaa labada muuqaal dhexdooda. Waxaan loogu talagalay in lagu qurxiyo muuqaalada saan loo dareemin jarjarka ama headcut-ka meesha ku jiro. Soo boodi muuqaal kale ayaa loogu talagalay. Waa ka bixinaynaa daran mid kale aan isaga baroweysanaa. Kadib inta kale adiga baarbaaro. Hal kale markaan fiirinaynaa. Kadib adiga baarbaaro hal xab kale ku fiiri. Inta kale adiga baarbaaro waa midka oo muuqaalka uu qurxan yahay samayso. Midka muuqaalka uu qurxan yahay isleeda uu fiican yahay midkaas qaado. Hadan kan ugu dambeyn kale aan ku fiirinaynaa. Waa ka gudbaynaa kadib. Qaabkan ayuu soo galaa kan asana. Alaabta soo galaa. Marka headcut-ka meesha laga ilaalinayo ama muuqaalkan xoog soo galaa meesha laga ilaalinayo. Okay, intaas waxay ahayd video transition. Transition kala jiro oo caadi ah computer ku shuban kartid. Laakiin kuwa ku defaultiga ah ayaa asiga oo wato. Qaabkaas nidaamkaas ayaa lagu daraa. Waxaa jiro wax loo yaqaan marka video effect. Video effect maxaa tahay? Halahan effect yani defaultiga oo leeyahay halahan waa marka. Intaan uu leeyahay mid kaarta ku darsan kartaa. Haddii aad korka taqaanid effectiga ku soo daraysna meeshaas calaamad searching ay ku qoran tahay tagaysaa. Effectiga xasuustid ama kale effectiga xibsanta aad rabtid inaad meesha ku soo dartid ayaa qaybtaas kor ku qorey.
meeshaasaa tegay tusaalaan hadda waxaan soo daraa wax loo yaqaano Gaussian blur. Gaussian blur ayaan kusoo darayaa. waa kana hoos asoo ku dhameystiraa waxyaabaha ugu fiican waxaa kamid tahay markaa soo qaadatid magac bilowgiisa asoo ku dhameystiraa soo jiid marka waxaa ku dhigaysaa video korkiisa. marka video effect iyo video transition waxay kala duwan yihiin. video effect muuqaalka loo kordheynaa markii loo kordhay kadib waa loo soo editing gareynaa hadana waa asal loo sii shaqeynaa kaasoo loo yaqaano effect control. marka soo jiid asas ugu deeyo hadda u jeedin wax isbedel ah muuqaalkaas ka muuqdo. muuqaalkan fiiri wax isbedel ah ama wax saameyn ah ku darsamin. waxa ku dareemi kartaa effect markii oo muuqaalka waxa oo ka bedelmo fx jaaleen noqonay midda ma noqonay had fiiri. marka waxaan tegaynaa wax loo yaqaan effect control saa uu shaqeeyno hada ka weys meeshii window tag effect control fix oo saara asal meesha ku soo darsamay marka tagto meeshan imo marka waxaan raadinaynaa marka video effectiga aan ku soo darnay meesha magaciisa tusaale hadda waxaan ku soo garnay Gaussian blur aan ku soo darnay waxa kana Gaussian blur inta ku qornaa mujidaa. marka Gaussian blur sababta videogan uusan ugu muuqanaynin blur waxay tahay boqolkiiba 0 ayuu taagan waa kan calaamada fiir boqolkiiba 0 ayuu taagan. haddii meeshan tirada aan badino blurku waa ka muuqanaa. tusaale meeshan aan ku daro tira aan ku daro saan u dareemo effectiga ka muuqdo ama effectiga yani ku dhacay muuqaalka saan u arko aan fiiriyo ujidaad muuqaalku isbedelay muuqaalku u fiirso blur isku bedel fiiri fasiix maaha blur saaran sababtay tahay Gaussian blur ku soo darnay waana badan tiradiisa. haddii tirada 0 laga dhigo siisu ahana saa ugu dareeno blurka muuqaalkan aan ku dareena marka muuqaalkan caadiga ah ayaan ku dareena soo qaad ku daa ku fiiri marka tirada badi ilaa 70 oo jidaa waxa isbedel oo jidaa effectigan wuxuu meeshan ka bedelay blur ka dhigay kan wajiis ma la arkay. haddii aan rabin effect inuu soo noqdo waxa tagaysaa meeshii 0 ayaan ka dhigaynaa soo effect uu baxo. haddii effect artiga ku dirsartina tirada meesha ka badsanaysaa. video effect marka xasuusaasa uu soo dareeyay marka waxaan barinaa wax loo yaqaan video effect oo maxaa tahay video effect meeshan aan u jeedo fiir video effect waxa ku qoran motion sidoo kale waxa ku qoran position sidoo kale waxa ku qoran scale sidoo kale waxa ku qoran rotation iyo opacity waa shanta ugu caansan waa intaas ugu caansan aan ugu muhiimsan intaas ugu muhiimsan ugu caansan. marka effectiga marka fiirno soo kale marka tagno motion marka tagno kale marka ku dhufano muuqaalkeena fiiri calaamadaas yar dhaxal soo muuqas fiiri muuqaalka. marka motion waxa si kasta waa awood kartaa inaad dhaqaajis fiiri dhinac midig bidix meesha tarta dhaqaaji kartaa. effectiga ku darsan mujida effect waa naftiis video saamee motion calaamadana tagay hadii wax ka qaldama reset a leedahay control z oo kale waaye sidii hore u soo celiyo hadaan taabto fiiri hadda eedan sidii hore noqdeen. qaybta kale positionka aan fiiriyo positionka waxa loo talgalay in labadan tire meesha taalo midigood waxa waa inaad bidix iyo midig u dhaqaajisid kan kalena waa up iyo down ama kor iyo hoos inta fiirad aan u dhaqaajinaa midig bidix gaan up iyo down labadood way tahay reset aan leeyahay marka arabsiis hore inuu ku soo celiyo. qaybta kale aan fiiriyo scale kan waxa loo talgalay waa panel zoom waay waxa soo dhaweeyay tirada ama in awl isku dhaw tirada daayirisid awl oo yareena muuqaalka haddii aad ka bisid muuqaalku weyneyna reset aan leedahay siis hore soo ku soo celisid calaamadaas andhow waay. sidoo kale rotation marka tahay fiiri aan tirada ziyaadiyay muuqaalkii caadi ah wareejinaya sadan saasa wareejinaya muuqaalka. meesha kala fiiri ee ku qoran tahay reset ee kana siis u celi meesha kale waa opacity markaan tago electa yaran furaa electaas yar ee geeska ayaan furaa opacity saan u arko opacity waa kana electa yar fur waa kana qaybiis meeshaan fiir tirada fiiri opacity waa cadada ama tirada uu ku daaran yahay muuqaalka yani iftiinkiisa waay. haddii meesha aan yareeyo muuqaalka iftiinkiisa gaabanayo haddii aan badina muuqaalka iftiinkiisa ayaa markaa sax noqonay. saa marka uu sidii hore oo soo celiyo reset aan dhaha marka reset aan leeyahay si soo celi marka
marka meeshaan u jeedid motion scale iyo position dhan waxaa ka horeeya calaamad yar oo sida saacadii oo kale waxaa loo yaqaanaa keyframe la wajida midkan scale ko wata position ko wata motion ko wata sidoo kale wuxuu wataa opacity iyo xindhan kuwaano dhan waa wataan mid kasto waxaa ka horeeya calaamad faraanti oo kale ah waxaan loo yaqaanaa keyframe waxaa loo talgalay keyframe siis banaan waxaa la yiraahdaa shaygan inta ka bilow ilaa meeshan kala geey falkiisna bedel tusaale ahaan haddii fiir aan ku darno meeshan scale aan ku daraynaa scale aan taabanayna calaamad yar markaa taabto fiiri waxaa ku darsamay calaamad yar oo diamond ah waa keyframe ko waay calaamad yar oo diamond ku darsamaayo marka waxaa leeyahay meeshan aan calaamiyay ilaa meesha kale iyo meeshan kale calaamad fiiri keyframe inta kaga daray marka add oo remove marka remove glisna asaa taabanay marka ku daraysa asaa taabanay meeshan aan ka soo bilaabay ilaa meeshan aan tagaayo oo labada yani diamond inta u dhaxeeyo muuqaalkan wax ka bedel tusaale zoom ku smeeyaan leeyahay ileen keyframe ko meeshan ka bilow ilaa meesha kale aad geynaysid ilaa meeshan kale igey falkiisna bedel hadda aan fiiriyo waxa isbedelay inta ka bilow ilaa inta waxaan dhahay opacitygiis iyo badi ama scale-kiisa iyo weynayaan la scale-kiisa fiirada muuqaalku soo dhawaanaya saa dareemayso zoomina lagu sameeyay zoomina sameeyay markii oo calaamadaas uu muudo fiiri aan soo siiso ku jawaab laakiin waxaan sameeynaa markii meesha aan tagno waxaan leenahay inta kale scale-ka sidiis u celi meeshan tag diamond ku dar waa keyframe ku waay meesha laga bilaabo ilaa meeshan waxaa sameysaa marka sidiis caadi ku soo celi boqol geli meeshan sidiis caadi ku soo celiyaan leenahay sidiis ku laabanaa marka intaan zoom ku ahaa marka intaan gaarana sidiis u laabanaa oo boqolkiisa ku laabanaa yani keyframe adeegsane waxaa leenahay inta ka bilow ilaa meeshaas gii ilaa meesha oo ka tagayna falka bedel anaga sameeyno keyframe saas loo adeegsadaa aan fiirino marka meeshan tago haddana laga bilaabo meeshaas ilaa meesha kale oo tagayna xasbina jidwa noqonaya scale-kiisa boqol ku fadhiisi oo saxda ah giya kabada saas sameeyna marka keyframe ka saas loo adeegsadaa sana marka video effect iyo video transition waa aygan laba cashir yani laba qodob ama laba cibaan waa laba cibaan oo muhiim ah marka insha Allah inta ku dhaafayna cashirkeena intaan muuqaalka la gaarayno cashirka aan muraajaceeyo mahadsanidin